siyaasiyiinta Puntland ee kala ah wasiirka hore ee amniga Puntland Xasan Cismaan Maxamuud Alloore iyo murashax madaxweyne ee hore Aadan Maxamed Ciise Gaadaale oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Garowe ayaa jawaab adag waxa ay ka bixiyeen hadal warbaahinta mariyay madaxweynihii hore ee Puntland Senator Cabdiraxmaan Faroole kaas oo ku aadan qorshaha dawladda iyo taageero ay sheegeen inuu muujiyay duulaanka maamulka Hargeysa uu ku soo qaaday deegaanka ka tirsan gobolka Sool. Arrintaasi ayaa siyaasiyiintu waxa ay ku tilmaameen wax laga xumaado oo aan loo baahnayn. Siyaasiyiintan waxa ay tilmaameen inuu hadalkii Faroole uu yahay fikirkiisa gaarka ah balse uusan ahayn mid uu ku matalo waxgaradka uqaasha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee gobolka Nugaal. Xubnahan ayaa si adag u diiday in la kala qaybiyo shacabka Puntland waxayna sheegeen in shacabka gobolka Nugaal uu ka mid yahay shacabweynaha Puntland oo ay diyaar u yihiin sidii loo difaaci lahaa dalka iyo dadka. waxaan u leexanayaa arrinta ku saabsan dhinaca madaxweynihii hore taabashada uu sida adag u ataagay madaxweynaha dawladda Puntland maanta ka taliya arrinta waxay nala ahayd inay aad u qaldan tahay. waxay ku qaldanayd waa marka koobaade waqtiga lagu soo aadiyay munaasib ma aha. hadday tahay xiisada dalka ka taagan munaasib uma ahayn, hadday tahay madaxweyne federaalka oo dalka booqanaya uma ahayn wax munaasaba, hadday tahay brotokoolka iyo standardka dawladnimo iyo madaxda lagu yaqaano uma ahayn wax meesha qabta. madaxweynayaasha adduunka soo wada qabtay madaxweynihii kursiga ka dega caado iyo uma aha dhaqan standardka adduunka oo dhan madaxweynaha talada haya inuu wax ka sheego. tusaale haddaan soo qaado madaxweynaha hadda dalka Mareykanka ka degay sanad ka hor Obama waxyaabo aad iyo aad oo Medicare Obama la yiraahdo ba maalin walba suuqa lagu jiida oo dawladda cusub ay ku dagaalanta hal maalin kama uu hadin intuu iska taagay. maxaa yeelay nin waliba maalintiisu leeyahay. marka waxa habboon dhinaca marka standardka la fiiriyo waa wax nagu cusub. Soomaalida hadeer madax badan baa dawladda federaalka isaga dambeysay oo Xasan Sheekh Maxamuud ka mid yahay ma uusan carqaladayn ninkii ka horeeyay oo maxaan ku radaa Shariif ninkii ka horeeyay Cabdullaahi Yuusuf ma uu carqaladayn ma habboona marka noomkii lagu yaqaanay ma aha marka dawladnimada sideeda. taasi waa qodob. waxa kale oo aan iyadana meesha ku habboonayn xisaabinta waqtigan la xisaabinayo wax ma qaban saasuu yeelay arrimaha in la xisaabo madaxweyne ma xuma laakiin ku diya dhaawac isla subay Soomaalidu yiraahdaan meesheedii iyo waqtigeedii in la sugayo the right time to the right people to the right issue maalintii la gaaro waqtigii ku habboonaa iyo habkii ku habboonaa ba xisaabtan ku yahay. maanta ma aha waqti hadalka lagu xisaabtamo. waxyaabihii madaxweynaha ka yaray waxa kamida uu iska tagaya madaxweynuhu yani hadalka wax lagu oran karo ma aha runtii mucaaradnimo ka muuqata saxna ma aha. hadduu joogayo iyo hadduu tagayo iyo hadduu re-election galayo xaq intaba wax qofka isaga ku saabsan. marka arrimaha anagu inaanu faraha ku fiiqno ma aha. qodobka kale aan rabo inaan wax ka iraada waxa weeye abiilka madaxweynuhu soo jeediyo reer Nugaaleed oo yaan dagaalaydin galin iyo wax noocaas ah. horta Puntland anagu haddaanu nahay dadka reer Puntland marka koobaad muslim baana, mar labaadkana Soomaali baanu nahay, mar saddexaadkana reer Puntland baanu nahay kulligaya. ma nihin reer Mudug iyo reer Nugaaleed iyo reer Bari iyo reer Sool luqadaasi naguma habboona. madaxweyne nin soo noqdana kuma habboona, nin caaqilana kuma habboona. meeshaasi hadalkaasina meesha ma qaban. marka in la yiraahdo reer Nugaaleed oo yaan dagaalaydin galinin hadal sax ma aha. haddii xataa la oran lahaa reer Puntland waa war la qaadan karo, haddii la yiraahdo Soomaaliya waa wax la qaadan karo, laakiin arrintaasi meesha ma qaban. reer gaarana kuma jirto. waxaan leenahay anigu hadda ku hadlaya magacayga iyo magaca dadka loo yeeray anoo ku hadlaya waxaan leenahay arrintaas tan madaxweynaha lagu yiri iyo tan annagana la ku yiridba labadaba apology baan ka bixinaynaa. runtii waxaan ka bixinaynaa apology cad oo madaxweynahana siinayno dawladda Puntland iyo dadweynaha reer Puntland aan siinayno. annaga reer Nugaaleedna lama yiraahdeen reer Puntland baan la yiraahdaa. taageerada kamid ah arrimihii ku soo dhacay tan iyo muxuu ahayto intii la soo dhaweynayay madaxweynaha dawladda federaalka ah oo ay ku jidhay hajuumkii qaawanaa ee tukaraq oo aan geed loogu soo gaban oo muddo dhan markhaanti ka tahay iyada kulley un xalkeeda oo dhici doona haddii alla yiraahdo. laakiin waxaan kaloo ka sii xunnahay madaxweynihii hore Cabdiraxmaan Faroole oo meel uusan munaasabkeeda ahayn nin wuxuu ahaa
aqoon-yahan nin wuxuu ahaa jagooyin badan soo qabtay nin wuxuu ahaa Soomaaliya dadka muxuu ahaa asadka laga hadlayay inuu meel aan munaasabkiisa ahayn kaga hadlay wax aan lagu hadlin oo cid dawladnimo soo madhay ama cid muxuu ahaa aqoon soo yeelatay aysan hadalkaas u qalmin waana mid aan anagu ka xunnahay haddaanu xigtadiisii nahay haddaanu nahay muxuu ahaa dadka uu magacaabay ee reer Nugaaleed oo uu ku tilmaamay Nugaal intii la qabsaday tukaraq waa Nugaal custom bay ahayd waxa Somaliland baa qabsatay inuu Somaliland ku taageero qabsashadeeda kalimadihiisii markii aanu muxuu ahaa dhageysanay aad baan uga xunnahay waxa kale labaynaya Nugaal hal siyaasi ma laha Cabdiraxmaan kaliya siyaasi ma aha siyaasiyiin badan bay leedahay makrofanka maalin kasta uu taagan yahay oo isagu isa siinaayo inuu kaligiis yahay taasna waanu ka digaynaa isagana wuu uga digaynaa bulshada reer Nugaaleedna wuu uga digaynaa yani siyaasiyiin badan bay leedahay waa wada tashanaysaa meeshii munaasaba oo loo arko contributionku inuu socdo baan ku wada go'aaminaynaa ismaan leenahay nabadoonnaan leenahay aqoon-yahan baan leenahay intaas marka isu timaado iyo shacabka iyo dadka waliba xukunka hadda maanta haya